Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaad asxaabta kanaalkeena mar labaad mar saddexaadba waa anigoo Yaasiin Qaasim Cali oo idiin taminaya barnaamijka. Waxaan muuqaalkan uga hadlaynaa dalka Finland. Inta aan muuqaalkan guda galin fadlan subscribe saar channelka, laagtana taabo siina share garay. dalka Finland wuxuu ku yaalaa qaaradda Yurub, waxa uu ka tirsan yahay dalalka la isku yiraahdo Scandinavian-ka. Waxa uu diris leeyahay dalalka Ruushka, Sweden iyo Norway. Finland dadweynaha ku nool waxay gaarayaan 5.1 milyan. Sanadka 1999 bilowgiisii, Finland waxaa si rasmi ah ugu noolaa 85,000 oo ajaanib ah, boqolkiiba 93. Afka hooyo dadweynaha Finland waa luqadda Finnish-ka, boqolkiiba 5 oo ku hadasha afka Swedish-ka. Finland waxaa kaloo looga hadlaa luqadaha Ruushka, Ingiriiska, Estoniyaanka, Soomaaliga, Jarmalka, Carabiga iyo afaf kaloo badan. Finland waxaa loo qaybiyay 5 gobol iyo 452 magaalo. Jamhuuriyadda Finland waxaa gumaysan jiray markeedii hore gumaystihii Swedish-ka, ayna ka xorowday 29 bishii Maajo 1809. Caasimadda dalka Finland waa Helsinki. Qiyaastii 86% dadka Finnish-ka ahi waxay ka tirsan yihiin kaniisadda Lutheraanka. Dadka asal raaca ah ee diinta sida ay tahay ugu dhagan waa in ka badan 1%, iyo inta aan diintaba haysan oo gaaraya 12%, 13%. Bedka Finland ay ku fadhiso 68% waa hawd ama duur, 10% waa biyo, 6% waa dhul beereed. Qaar badan oo ka mid Finnish-ka waxay si caadada ahaan jirtayba ka shaqeeyaan warshadaha farsameeya waxyaabaha laga sameeyo geedaha iyo birta. Weli qaar badan oo ka mid ah shaqooyinka cusub oo soo baxaya waxaa laga helaa shirkadaha ka shaqeeya cilmiga farsamada iyo wax soo saarka ama tiknoolajiyadda iyo xirfadaha kale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.